رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية xubnaha golaha wasiirada nagala joogo marti sharafta kale iyo hay'adaha caalamiga dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed baahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa sharaf ii ah inaan idinkala soo qayb galo madasha maanta dhalinyarada Soomaaliyeed shirweynahoodii qaran lagu qabanayo shirweynihii sagaalaad dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed waxayna tusinaysaa ahmiyadda iyo qiimaha ay xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu fadhiso dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay ummad walba ay waxa laf dhabar u ah waa dhalinyaro ummad walba ay wax badbaadiyo waa dhalinyaro dhalinyartana waxa looga fadhiyaa madasha maanta iyo shirkan saddexda cisho socon doono in ay maankooda iyo maskaxdooda shiilaan isweydaarsadaan aragtiyo la yimaadaan hal abuuro wax ku ool ah maxaa yeelay haddii la idin dhihi jiray hogaankii birri ayaa tihiin waxaan aaminsanahay awoodda maanta waa adinka ayaa lidin sugayaa maskaxdiina iyo maankiina la sugayaa inaad isdhaafsataan afkaar kala duwan waxaan rajaynayaa madashan saddexda cisho socod doonta inay ka soo bixi doonto afkaar ummadda Soomaaliyeed aad ku garab istaagi doontaan iyo geedi socodka dawladnimada iyo nabadeynta dalka sida aad la socotaan dalka wuxuu ku jiraa dib u xurayn waxa la dagaalamayaa nimankii khawaarijta ahaa waxa furinta hore taagan waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo adinkoo kala ah oo u taagan inay u huraan waxa ugu qaalisan oo qofka bini'aadanka huro oo naftiisa ah marka waxaan rabnaa inaan garab istaagno dhalinyartaas waxaan rabnaa inaad afkaar iyo aragtiyo aad la imaataan waxaan rabnaa inaad shirkaani markii u dhamaado uu ka soo baxo wax lagu aayo ummadda Soomaaliyeed aayaheedana wax badan u taro waan aaminsanahay dhalinyarta Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa oo la yiraahdaa waa 70% waxaa la yiraahdaa hoggaanka biri ayaa tihiin waxaan aaminsanahay awoodda maanta inaad tihiin maanta idinla simantaa inaad qarxisaan energy-ga idinku jira aad isu keentaan si aad uga qayb qaadataan badbaadinta ummadda Soomaaliyeed mar raba inaan hadalkay ku dheeraado waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportska sidaas quruxda badan ay u soo agaasimeen shirweynahan dhalinyarada qaranka Soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad aadan idin salaamaya waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh